بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد شفت لي مكتوديدا كجوجنا أدي وأنا سنة ولكن على شمع مرة بعديه وغالص بعدي أدوات ما صدق وشد فيديو من ملك سعودية كجوجنا مدة الصومالية حني رجعني أقول يوم ونيمو إن شاء الله بإذن الله كلمات وحن كاد دونا مغالي رؤاد وقاون لكن هذانا وحو حنبارسني هي أما وحيابه وكهذا يا وقلبي حقيقة أدو تابتي قف كستو بلاد مية قدامي كسنو اللي هنا ساسو كلو تابنيا وقال كاسن كاد دونا بإذن الله كريم meel kastoo umada Soomaaliyeed ka joogtiin waa maalmi khayrka qabay waxaan rajeynayaa timdaaf insha Allah hadaba intaan inagu faalayno sameeynin ruuxna eeg doona muuqaalka ka bacdi baan inoo ku dari doonaa wixii aragtideena insha Allah biidmillahi kariim وانا كو خان احسن بقولكيو بقول مر والبو سو عريسان سي بريرا سي دمبشا سي دو مشال سي ددبل با اسكو دايسان مر والبو ياد انيد جيسان سيدا اني aan u ekay ama qaabkiyo kale muuqaalina usoo duubtaan oo baraha aad la soo fariistaan wiilka Soomaaliyeed oo muuqaalka wiilkan wuxuu ka hadlayaa asmaday sida Ilaahay u sameeyay ummadan bini'aadmigaasina lagama amaan helo waxay ugu tageen sameyntii Ilaahay umada Soomaaliyeed ama qof kasto aqli leh qof kasto damiir leh muuqaalkan wuxuu ka hadlayo dareemaya walaalkaygan daawanayo adii anigu isku mid ma yihiin waayo waan kala duwanahay shakalaama kala duwanahay waan kala gaadaan doona wadiga qurux badnaan kartaa waan ka qurux badnaan quruxda sidii bini'aadmigu u yaqaanaan wiilkan wuxuu ka hadlayaa waxyaabaha loo adeegsaday anu wiilkan galinkan social media uu ku jiray laakiin kama hadal sababtaan uga hadli waayna waa wiil dhalinyaro Soomaaliyeed wuxuuna xaq u leeyahay inuu ama heeso ama fanka uu ku soo biiro taasina muhiimad weyn aniga ima laha isagay u tahay inuu wixii macna isaga naftiisa anfacaya ama uu soo bandhigi karo uu soo bandhigo bal hadaba shakhsiyadkiisii baa looga yimiday erayada uu adeegsanayo oo ku hadlayo waxa kamid ah waxa macnaha adiga sida Ilaahay uu ku sameeyay iyo saan anigu inuu yahay ii sameeyay isku mid ma aha anigu waxaan ku qanacsanahay rabbiga khaaliqihi sidoo ii sameeyay الحمد لله قف كستو بنا آدمية إلهي وحو سميي ديسين غارة أما وح إساقا أو غارة ولالكيغاني داوان يا مولاشداني داوان ساي هذا واد ليران كرتا واد غابنان كرتا واد قروح بدنان كرتا واد عسان كرتا مدو مدوبان كرا مدو غابن كرا إلهي بادتك بنا آدميغا كلا دوي قفنا قف كلمو مدين فهذا walaalkayga muslimkow ama walaashadan muslimada ay daawan doontaay bal inan kan Soomaaliga ee ka hadlaya sameyntii Ilaahay baa la doontay inta la dhaafay wax la qoro wax qof kale laga sheego ayaa waxa loo tagay wax Ilaahay u gaara waa runtii isagu muu dooran Ilaahay baa u dooray Ilaahay baa sidan ka dhigay Ilaahay baa quruxdan siiyay إلهي با مسلم كدغاي إلهي با Soomaalina كدغاي waliba intii ba loogu tagay marka wuxuu ka cabanaya ummadda Soomaaliyeed oo ka dhashay waxyaabaha ay ka sheegayaan ba xaqiiqatan qalbigiisa taabtay sababtaasuna social media wala wadaagay walaalkaygan daawanaya molaashadani daawanasay miyaad ku qanacsantahay inaad asmada Ilaahay qof bini'aadmi sidoo Ilaahay u sameeyay qof bini'aadmiya inta ugu doonataa tiraasi fool xun baad u samaysay anigana si qurux badan baad ii samaysay bal daawo ereyado uu ku hadlayo wiilkani abuuristan anu ma dooran Ilaahay baa ii dooray inana rabbi baa ku dooray anigana Ilaahay baa sani dooray idinku oo dilaya dareenkayga iyo moralkayga waxaad iska dhigteen san anigu u aalo inaad inta soo matashiin ad aniga iska kay dhigtiin ama adigu dhibaataysiin qaabka Ilaahay abuuray buu leeyahay Ilaahay qaabka uu abuuray isaga siiyay oo ku deeqay adigana qaabka Ilaahay uu ku abuuray isaga ku siiyay xaq miyaad u leedahay asmooyinkii Ilaahay inaad adigu doonato oo tiraadiga Ilaahay si fool xun buu ku abuuray oo si jeesta social media u soo dhigto waxa doontana aad uga sheegto aysan moogtahay walaalkaygan daawanayo haddaad adigu qurux badan tahay إلهي قروحتني سجا كسيي
uu kaa qaadi karaa horta anu quruxda uma aqaano qof soo taagan oo dheer oo caynkaas oo badhaabdha anu waxa uma aqaano quruxda waxaan u aqaanaa qofka qalbigiisu qurux badan yahay ayaa qurux badan kaasaana guulaysta adduun iyo aakhiraba ma guulaysto qof halkani bern madow ay tahay wejigiisu noocuu doono ahaado sifahay Soomaalidu ku micnaysana noocuu doono ha ka ahaado laakiin qiimo ma samayso taasi inkastuu Ilaahay ku siiyay haddaad daawanayso iyo haddii kalaba Ilaahay baa kugu deeqay haddaad qurux badan tahay haddaad dheer tahay haddaad ordayso qaar baaban ordinba qaar baan caafimaad haysan intaba Ilaahay baa bixiya ma ogtahay curyaankaba agalooma waayine caynkaa wax loo yidhi kuwa carara yeeladan ha ku cilmi qaataan alla yaabin foolxumo fajacayna kugu noqon farsamada Ilaahay dadka lagu macaaye ruuxu faraqu maran yahay hawfaani weliga in farashka eeba markuu doono furaye walaalkaygani daawanayo haddaad adigu lixdaada la xaday dhameystiran yihiin qaad baan intaaba haynba wiilkan waa wiil lixdiisa la xaday dhameystiran yihiin waa wiilka xayga haddana shakhsiyaadkiisa Ilaahay uu siiyay ayaa loogu tagay aniga reeyahan sayla tahay waa wax aad u fool xun qofku waxyaabaha soo kala sameeyana waa inuu Ilaahay cafis weydiistaa rabbiga khaaliqa awoodda leh waa inuu cafis weydiistaa way Ilaahay baa dadka abuura Ilaahay baana qofna qurux badan oo siyaasa shakalka Soomaalida u taano qofna sidan u dhaqa qofna curyaan ka dhiga qofba nooc buu ka dhiga cidna Ilaahay uma waayin laakiin bini'aadmiga yara daciifka ayuu ku eegayaa ka aad baan uga xumahay dadkeena Soomaalida inay ku sifoobaan horta dadkeena caydu way u fududahay inay wax iska qoraan wax doonaan sameeyaan waa iska wax normal way laakiin xaqiiqatan waxa qalbiga qofka bini'aadmiga dhaawacaya in aad loo kantaroolaa aad bay wanaagsan tahay intaasaan rabay inaan ila wadaago walaalkiin cali jaamac assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh